waxaan kala soo hadlayaa xaafadan oo ka tirsan laanta Cali Boolaay ee degmada Waaberi ee gobolka Banaadir waxaan dul taaganahay alaabta qoys dhan oo ku dhaqnaa gurigan gacantayda bidix ka muuqda 50 sano ay halkan ku noolaayeen Shamsa Saciid Faarax ayaa hooyada qoyskan waxay noo sheegeen in ciidamo ka amar qaata taliyaha booliiska saldhigga degmada Waaberi ay weerar ku soo qaadeen alaabtoodii ay banaanka u soo dhigeen iyo caruurtii gurigina ay ka qunfusheen oo habeennimadii xalay ahayd ay halkan ayay qoryaal soo qaatay